Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamay halkan iga daawanaysa waa Yaxya Live. Runtii waxaan rabaa inaan idin sheego war muhiim ah kaas oo ku saabsan arrimaha Jarmalka. Warkaad arkaysan runtii wasiiradda arrimaha gudaha waddanka Jarmalka gabadha lagu magacaabo Frau Nancy Faeser ayaa runtii waxay sheegtay in ay qof kastoo Jarmalka jooga khaasatan muwaadiniintii iyo qof kastoo waddan ku nool inuu haysto kayd ku filan. sababtirna waxa weeyaan waddanka goor ee haataba inuu dagaal dhici doono dagaalka saddexaad ee adduunka inuu dhici doono si la sheegayo. Jarmalka ayaa wuxuu sameeyay faragelin toosa iyo taageero toosa ayuu fidiyay dalka Ukraine hub aad iyo aad u badan iyo runtii caawimaad ayuu gaarsiiyay dadkiisa waddanka kusoo dhaweeyay. Taasina waxay dhabarjab iyo niyad jab ku noqotay Ruushka. Runtii Ruushkuna sidoo hore u sheegay waxyaalahu Jarmalku uu ku wado xuduudaha uu leeyahay runtii inay yihiin waxyaalo faragelin aad iyo aad toos u ah Jarmalka Ruushka taas oo laftirkiisa dhibaato u keeni karta. Sidoo hore u sheegeen wasiirka arrimaha dibadda Ruushka gantaalaha xukuumadda Ruushku leeyahay saddexda magaalo ee Yurub ee lala beegsan doono ayaa waxay ku jirtay magaalada Berlin ee caasimadda waddanka Jarmalka, magaalada Paris caasimadda waddanka Faransiiska iyo magaalada London caasimadda Great Britain ama England. Runtii ra'iisul wasaaraha oo hadlay ayaa wuxuu si toos ah uga cadeeyay fagaaraha inuu hiil iyo hool la hortaagan yahay la garab taagan yahay walaaladiisa Ukraine. Taasina runtii shacabka Jarmalka aad iyo aad u dhaliileen mucaarad siyaasi ganacsade iyo cunsuri wuxuu doona ha noqday dadkoo dhan isku raaceen inay khalad tahay. Si loo socono dagaalkii labada adduunka oo runtii Jarmalku aad ugu jabay Ruushka dadkuna aynay ogoleen burburkii waaga kasoo gaaray ilaa hadda aynay kasoo kabsan. Magaalooyinka qaar ee Jarmalku aad u duduusan yihiin ilaa hadda bambooyin laga helo magaalooyinka qaar. Runtii wuxuuna sameynay ra'iisul wasaarahan wax aad iyo aad u khaldan tahay. Haddaba mawduucaynu wuxuu yahay fadlan haddii aad joogto Jarmalka wasiiraduna say nafarayso waxaa muhiim u ah inaad haysato kayd kugu filan. Kaydka doon wuxuu noqon karaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee Jarmalku kaga baxay dagaalkii labada adduunka waxaa kamid ah daqiiqda ama burka soo taqaano. daqiiqda runtii waa muhiim inuu guriga ku taalo. daqiiqda wax badan baad ka samaysan kartaa, khubs ka samaysan kartaa, rooti ka samaysan kartaa. waxyaalo badan baa laga samaysan karaa nolosha lagu moodo. Marka haddii lacala wax dhacaan oo kale waa muhiim inaad daqiiqa haysato qolka ku taalo. Sida loo socono saliid waa laga waayay waddanka Jarmalka laakiin daqiiq waa muhiim inaad haysato iyo waxyaalaha adag. Runtii dowlad la'aan ayaa inagan haysaa. Marka qof kastoo waa muhiim inuu haysto daqiiq iyo cunto qaydin oo guriga u taala. Marka walaal waxaan idin kula talinayaa dadka maatida waliba khaasatan dumarka ubadka leh hadduu dagaal dhaco dee waddankan nimanka horta dagaalka galayaan furmay tageen laakiin dumarka iyo maatida guryaha ay kusoo harayaan. Dowlad ma haysano imika naawisa oo dumarkeena iyo maatideena u tudha oo xamaasha. Laakiin waxaan kula talinayaa qof kastoo family ama qof kastoo Jarmalka jooga inuu haysto kayd ku filan keelaha la dhigtaa guryaha qaar meelaha la dhigtaa waa muhiim. Lacala haddii ay dhacdo sida la faafinayo ama la saadaalinayo dagaalka saddexaad ee adduunka inuu dhici doono yoomin ayaa igaal beritoole goorta doonaan doqomar dhow inuu qarxi doono. Marka fadlan ka taxadir kayd guriga soo dhigo si aad uga badbaado. waa muhiim walaal bankaas wasiiraduna iyadu ayaa runtii wax badan u ogtahay ayay dadkeeda uga turaysaa ma rabto in wax kadis ay dhacaan not fall waa waxyaalo degdeg ah hadday dhacaan lacala waa inaad waxaad ku baxsaystaa ee guriga ku yaala. maanta warka waxaan ka arkay TV qof duubay video Ruushka oo gantaalada xukuumadda ku sii wada xuduudaha Finland iyo Sweden laftirkooda ilba ku godan inuu weeraro doonayaa. runtii waa la soconaa dagaalkii labada adduunka waxay dhacay Jarmalka gaadhay taa kuma toos qaadan laakiin ninka ra'iisul wasaaraha cusub siyaasad cusub la yimi ra'iisul wasaarihii hore Frau Angela Merkel runtii siyaasad aad iyo aad fiican bay waddanka ku waday laakiin ninkani dhinac kale u jeediyay. taasina waa laga soo jeestay. Markaa Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan walaalayaal waxaad samaysaan waxaad u baahan tahay kayd kugu filan inuu guriga ku yaalo. fadlan taxadira insha Allah taala walaalkiin oo khayrkeena jecel idinkuna insha Allah videogan share iyo like ta kula daala commentigana noo reeb wixii fariina waan jecelahay markasta in update ka dhigo aduna fadlan isku day inaad videoda soo dhigo asxaabtada la sii wadaagto si uga faa'iidaan.
waxaan kugula talinaya insha allahu tacaala balanteenu in aad wax kayda guriga ku yaalo is ilaalisaan. Ahaanta Yurub seen moodayna maaha. Yurub waxyaalo badan baa iska bedelay sidii Jarmalka usoo galeen dadka Ukrainiyiinta sicir barar baa dhacay, noloshii double bay qaali noqotay. Markaa fadlan is ilaaliya oo waxaad sameysaan qof kastaaba intuu taxadiri karo oo raashin guriga ku filan karo soo dhigo. Caanuhu aad bay muhiim yihiin haddaad dhigan karto. waxaa jira caano liido dukaamada lagu iibiyo. Caano liidowgaas waa soo dhigan kartaa, badanaa dhicitaankooda aad buu fog yahay, laakiin caanahan kale badanaa talaagadii waxaasay rabaan uma baahnid. Caano waa muhiim si lacala haddii wax dhacaan ciyaalka aad uga baxsataan. Runaantii dee waad arkaysaan aad bay noloshii yacni Jarmalka usoo adkaanaysaa. Jarmalkuna uu noqday qof aad iyo aad yacni cadaadis u saaray ruushkuna uu ciil u qabo Jarmalka. marka walaal khayr baan heli jiray insha Allah. aad baan idin salaamaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi